garashadii sarreysaan naqbay kugu garqaadaaye gablan badownimooy way ku ridi godad ninkeedii intaas waa hordhici channelkeena garashada sarreysa daawadayaal mar kale soo dhawaadaan in leeyahay adduunyadan hirkeedii kacay hore u guuraysa dayaxa sare haybisay guudka sare haaban duulba duul kale halaa kula haliilayo hujuun dagaal iyo dulmiga loo hubguranayo mid waliba qoladii habnugul dara ku haynayo waxba cidii laga elhele laga hambeynaynin ummadan hawoonaynin hoos u wada jeeda waxaan haboonayn waqtigu kaga halaabayo ujeedadii loo halgamay higsan kari weyda ka hela kursiga iyo xilkii la isku haysaystay hogaamiyaha loo igmaday wada habaaraysa hiifta maalmaba isagoon hawsha lagu dhowrin aan hansara yeelanay hoos isugu foofta burbur iyo halaag inuu ku dhici oo hog lagu tuuri oo cadow hareeraha ka maray hareeyaa u sheega toorey afle baan wataa tukaan ugu xiirayaa tusbaxa qoorta iigu jira tasbiix uma aan watee tiraan ku xisaabiya caynkaa kor laga qalay ciridkaa kab laga dhigay cudkaa la isku wada dhigay cayn baa la degamsaday caqli foororaa yimid cirku nacabku joogsaday guntu diricu caga dhigay casiizoona sama bixi jaajuus durbaan cadowtinimo duhur cad soo qaata oo miskiinka dagan xaasidnimo kula dulmeeraysta iyo koox ku dabafayshan oo miidiyaha daadsan oo markuu dabinka ruux la helo wada damaashada oo markhaati been ugu darto dhaara ugu deeqda intaasoo iswada dooratiya dawlad shilimaada waa wixii daraad ina kharibiyay dib noo dhigay baldayaay wata ina dul hogan doorkan halistii naftaydani huqdiya ciilku dilay harsani weeday hoos u ooydeen hurdaba ladin habeen oo dhan heerka Soomaali mari horisay laabteeda iyadana halkuu eebbe qoray lama huraankeeda inaan taa hareer laga marin hareeyaa u sheega السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادة بحث قرشة الرئيسة عاو كل جيبا فديا ما فديان أصحابتي أديك برتين إن هريرة فديان إن شاء الله تعالى شدك كسر تيران داود ياشا قيمة هلا هرت هردي عشان كان مركور إذن مقاشينية قرشة الرئيسة نقبل كوجو قرقاداي قبلا بدوني موي ويكون ردي جدد من كذي أنت صو هردي عشان كنا قرشة الرئيسة داود يال مركز سود بدن الله هاي maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo in saddex qolo la hadlaan rabaa qolada koobaad waxa weeye bulshadeena Soomaaliyeed cidda labaad aan rabaa inaan la hadlano waxa weeye hogaamintooda meel kasta joogan inay nooc yihiin cidda saddexaad aan la hadlayana yaad ka filaysan waa aniga ana isla hadlay nafteeda aan la hadlaya intaas oo dhan waxaan isugu marin doonaa hadaan intaas oo dhan waan ka khudbadeyn waqti dheer bay qaadana gabay baan isugu marin doonaa insha Allah taala marka soo dhawaad marka la idin leeyahay waa hore oo xaaladda dadka Soomaalida qiimeeyay baan tan kaliya waxaan idhi caynkaa kor laga qalay ciridkaa kab laga dhigay cudkaa la isku wada dhigay cayn baa la degamsaday caqli foororaa yimid cirku nacabku joogsaday guntu diricu caga dhigay casiizoona sama bixi amiin dah mar kale aan ku socdo daawada gabigaan ugu tala galay caawa inaan kula hadlo Soomaalida iyo naftayda iyo madaxdeedaba Soomaalida hogaaminteeda caan waxay ku tahay saad oo kursiga u soo fadhiisay waqti in xagasho lagu bilaabo hogaamintuna waxay caan ku tahay inay kala garan wayn cidii hogaamiyaha u yihiin cidda kale tusaale hogaamiyaha Soomaaligu kama dhacsan ninka aan dooran inuu isagu xukumo kama dhacsan ninkan isaga dooran tusaale doorasho dhacday kumaana codaynin waana soo baxday hogaamiyaha tahay hogaamiyaha tahay waana taa aqoonsato laakiin ma aqoonsana waxaan doonayaa inaan taa inay aqoonsadaan nafteedana iyaduna wax gaar ah Ilaahay uu og yahay man rabaan inay aqoonsato aan soo wado bismillaahir rahmaanir rahiim adduunyadan hirkeedii kacay hore u guuraysa dayaxa sare haybisay guudka sare haaban duulba duul kale halaa kula haliilayo hujuun dagaal iyo dulmiga loo hubguranayo mid waliba qoladii habnugul dara ku haynayo waxba cidii laga elhele laga hambeynaynin ummadan hawoonaynin hoos u wada jeeda waxaan haboonayn waqtigu kaga halaabayo ujeedadii loo halgamay higsan kari weyda ka hela kursiga iyo xilkii la isku haysaystay hogaamiyaha loo igmaday wada habaaraysa hiifta maalmaba isagoon hawsha lagu dhowrin aan hansara yeelanay hoos isugu foofta burbur iyo halaag inuu ku dhici oo hog lagu tuuri oo cadow hareeraha ka maray hareeyaa u sheega horjoogaha go'aansada xilka heeriyada qaada goortii isaga looga hara laguna heenseeyo horay kii uu doortay midkan foodka u hibeynin labadaba hogaanin uu yahay miduna hooseynin oo cadaalad ugu hawlgalo oo xaq u hirsho inuu taa ku hawlgalo haduu heedha garan waayo hal markii dhaliilaba haduu gelin hurufayo hogaamiyaha Soomaaliyeed qolo cid dhaliisay wuxuu yaqaanaa cadow dhaliisay wax bay toosisaa
hore kii doortay midkaan foodka u hibaynin labadaba hogaanin uu yahay midna hooseynin oo cadaalad ugu howlgalo oo xaq u helsho inuu taa ku howlgalo hadduu heedha garan waayo hal markii dhaliilaba hadduu gelin huruufayo ama uu haraatee midku hadal ka soo yeedho oo haba yaraatee dulqaad heerna laga waayo inuu shacabka hadafkii ka lumin guul la heli doonin isna uu habow iyo dhex geli ceeb ka hari weyda oo weliba haadaan ka dhici hareeya u sheega kaasuna waxa weeye waa hogaamiyihii inuu shacabka hadafkii ka lumin guulna heli doonin isna uu habow iyo dhex geli ceeb ka hari weyda oo weliba haadaan ka dhici hareeya u sheega xilal haatan kuwa doonaya ee wada haliilaya midka hela xafiis ama wasiir ee wadaya hawshiisa halkuu hadaf sariya dhowri lahaa heer dalkani gaadho haddii uu kursiga uu fadhiyo hagi aqoon waayo oo hoy isagu leeyahay hoos hele ka soo qaado oo qabyaalad hoose ka dhigo heero mid u gaara ama daanka buuxsiyo hunguri haamaha u qaato inuu hoos ka daadin xaqoos toos ku hori doono hantiduu dhacayna uu Allah la hor imaan doono halkaasina xisaab weyn ka dhici hareeya u sheega naftaydani huqdiya ciilku dilay ee harsani weyday ee hoos u ooydeen hurdaba ladin habeen oo dhan ee heerka Soomaali mari horisay laabteeda iyadana halkuu eebba qoray lama huraankeeda inaan taa hareer laga marin hareeya u sheega intaas waxa bar inuu yahay gabaygii koobaad ee kula hadlayay dadka Soomaaliyeed hogaamintooda iyo nafteedaba toorey afle baan wataa tukaan ugu xiiraya tusbaxa qoorta iigu jira tasbiix ma aan watee tiraan ku xisaabiya waxaan raacinayaa gabay kale oo isaguna ka hadlaya waxyaabaha Soomaalidu ay wali ka waantoomin adduunyada waa hore laga tagay adduunyada basaas iyo sirdoon iyo hawl magacay dad waxa la yiraahdaa inkastoo dad xogaha raadiya dalka badbaadinaya dalka waxtarka u leh ama dadka waxtarka u leh laakiin Soomaalidu waxay raadisaa xogaha ay dadka ku dilayso ruuxa isaga walaalkii xogta uu ku dilayo maanta xogtu wuxuu ku gadan lahaa walaalkii yaa wax walba kala weyn sidaas daraadeed iyadana waxaan raacinayaa gabaygan kale ee la yiraahdo la magac baxay isaguna dulmi iyo xiqdi iyo duudsiyo daris la cayreeyo dambi lagu baraariyo xaq lagu daciifoobo deegaanka waa lagu ogaa daalunta jiray hayeshe dabayshii kal hore daranyadii xaaqday daruuraha raxmaanka iyo nimcada dagalka saameysay dacadkii kadeedkii iyo shacbiga dakharadii gaaray inuu daadku meydaan la rabay oon ku deersaday bal inuu daadku meydaan la rabay oon ku deersaday bal dayaay dariiqii xumaaba dib loo maray jaajuus durbaan cadowtinimo duhur cad soo qaata oo miskiinka dagan xaasidnimo kula dulmeeraysta iyo koox ku dabafaysan oo miidiyaha daadsan oo markuu dabinka ruux la helo wada damaashada oo marxaati been ugu darto dhaar ugu deeqda intaasoo iswada dooratay dawlad shilimaada waa wixii daraad in akhribay dib noo dhigay bal dayaay wata ina dul hogan doorkan halistii wanjalaada dibindaabyadii duhur cadjaajuuska ciwaanada la kala dooriyo dabinu qooqaalka dambi adduunku soo qortay ruux dusha saarka canaasir diyaarsiga durbana dhaar ku damaqsinta waa dariiqii lagu jabay kal hore oo dib loo maray bal dayaay filin aan daawanay dib u jilayaan intaasna waan idin raaciyay gabayo kale fara badan oo soo socon jidka ku soo jiraan riwaayadaha masaajilooyin baa soo socda qosol baa soo socda waxa soo socda qisooyin insha Allah ta'ala barnaamijka bahda garashada sareysa dhamaanteen nala socda idinkuna channelka xaqiisa ha ka hakrana channelkuna xaqina idinka hakran maayo waad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh